halkan waxaan runtii uga mahadnaqaynaa dawladda Masar oo xiriir qadiimi ay leeyihiin Jamhuuriyadda Soomaaliland horena u lahaayeen iminkana ay leeyihiin runtii waxaan uga mahadnaqaynaa mucaawino ay soo gaarsiiyeen dadka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay soo mariyeen wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga sidii Aamine ay hore u sheegtay dawladda Masar waxay mucaawimadan oo ka koobnaa 4 container oo 40 feet ah oo isku jira cunto iyo dawo ay ugu tala galeen dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u baahan caawimada runtii aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa caawimada mugga leh ee nooga timid dawladda Masar ujeedada maanta aan halkan isugu nimid anaga iyo hay'adda samafalku waxa weeyaan in mucaawimadan aanu ku wareejino hay'adda samafalka si ay iyaguna ugu sii wareejiyaan meelihii kale ay khuseysay ama isbitaalada ama xarunta agoomaha ay u xil saarnaayeen runtii mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu u mahadnaqaynaa dawladda Masar oo xiriir wanaagsan oo soo jireen ah oo diblomaasiyadeed oo walaaltinimo ay leeyihiin Jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aadna waa u mahadsantihiin waxaanu leenahay Aamina iyo xafiiska samafalka mucaawimada arkaysaan runtii naga gudooma waana la soo mariyeen anaga cidii lahayd shaqadaasi waa idin bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda fahmi oo kamid ah xafiiska arrimaha dibadda Cabdiraxmaan oo madaxtooyada dhammaan waan u mahadnaqayaa halkan waxaan maanta u joognaa mucaawino ay soo gaarsiiyeen dalka Masaarida gaar ahaan safiirka u fadhiya Masaarida waxa uu shan nala soo socodsiiyay fahmi oo kamid ah saraakiisha arrimaha dibadda aad iyo aad baan wasiirka iyo fahmi iyo arrimaha dibadda oo hawshan iyaguna hawl weyn ka galay si ay noo soo gaarsiin lahayn hadaan nahay samafalka aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa mucaawinadan waxay ka kooban tahay sida aragtaanba kartoonada waxa ku jira caaniga caruurta yar yar beans waxyaabaha nafaqada lahaa waxa kale oo iyaguna jira dawooyin aad iyo aad u fara badan oo dawooyin manfac leh ay iyaguna soo direen dalka Masaarida iyo safiirka aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa mucaawinada ay soo gaarsiiyeen hawshana ay aad iyo aad uga shaqeeyeen fahmiyo arrimaha dibadda Cabdiraxmaan oo madaxtooyada Cabdiraxmaan Saqadhiyo runtii hawsha u weyn ka galay sidii hawshani ay u soo gaari lahayd halkan wasiirka aad iyo aad baan uga liibaan aad iyo aad baan isna uga mahadnaqay